السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين نمو ونكسنا خيارتنا دعونا ساي كسر دوادا وروح العالم كيد كهيني رمضان مبارك يوتيوب كنا بدي بري channel وركع عاون إذا هنا دار دين إذا كوريو وركع مدحديث رئيس الوزراء دلك هندية أيا بوقشة كوي من إسرائيل رئيس الوزراء هراء كوريا دا كونفريد أو محكمة دلكاسي كقاتل رفعان مدحونا إسرائيل وبوقشة كوي من إثيوبيا مدحونا سومالان وصفير ومقعاوي محمد عمر حاجي لانكا كالي سيدي ورركو شيغيان إسرائيل أيا إيادونا دوان لا فيلايا إنay soo magacawdo safiir waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland safiir buuxa oo si rasmi ah loo aqoonsan yahay ay magacawdo daawadayaal wararka dhidixayna madaxiisu waa inta ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jeediyay khudbad gaar ah oo State of the Union ah oo uu ka horjeediyay Congress-ka khudbadiisa ayuu diiradda ku saaray dhaqaalaha sixir bararka siyaasadda socdaalka iyo ganacsiga khudbadda ayaa ku soo beegantay xilli ay jireen murano siyaasadeed iyo banaanbaxyo ka dhacay banaanka xarunta Congress-ka intii lagu guda jiray khudbadda xildhibaaneed Ilhaan Cumar ayaa si kulul uga jawaabtay hadallada Trump gaar ahaan marka uu ka hadlayay arrimaha socdaalka iyo amniga waxay ku eedeysay in siyaasaddaasi ay waxyeello u geysanayso Mareykanka khilaafka ayaa sababay dood xooggan oo ka dhex dhalatay qolka Congress-ka iyadoo Trump isaguna si adag uga hadlay Ilhaan Cumar iyo xildhibaano kale Ilhaan Cumar ayaa sheegtay inaanay ka shalaynin hadalladeeda isla markaana ay u aragto difaaca siyaasadeed ku salaysan aragtideeda dhanka kale dowladda Canada ka imaanaya Canada ayaa sheegaya in sixir barar cuntada la filayo inuu kordho cashuuro iyo kharashaad cusub ayaa la sheegay inay saameyn ku yeelanayaan dhaqaalaha gudaha dalka taasoo culays saaraysa qoysaska dalka Canada wararka ka imaanaya South America Brazil ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay daadad ka dhacay gobolka Minas Gerais ee dalka Brazil kadib roobab xooggan oo sababay burbur guryo iyo khasaare hantiyadeed kooxaha gurmadka ayaa weli ku howlan samabixinta iyo qiimeynta khasaaraha wararka ka imaanaya China Japan dowladda Shiinaha ayaa xadiday dhoofinta qaar ka mid ah qalabka tiknoolajiyadda ee la xidhiidha dhinacyada military ee Japan talaabadan ayaa ka dhalatay xiisado dhinaca difaaca iyo arrimo istiraatiiji ah oo u dhaxeeya labada dal dhanka kale madaxweynihii hore ee dalka Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa ku dhawaaqay inuu raacfaan ka qaadanayo xukunka lagu riday oo la xiriira xaalad degdeg ah oo hore u saaray arrintan ayaa dhalisay falcelin siyaasadeed oo gudaha waddankaasi ah dhanka kale ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa booqasho rasmi ah ku tagay Israa'iil halkaas oo uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga tiknoolajiyadda ganacsiga iyo horumarinta gobolka iyadoo la sheegay in la dhisayo iskaashi istiraatiiji ah oo ay ku midaysan yihiin dawlado dhowr ah wararka qaar baa sheegaya in dawladahaasi Itoobiya India Imaaraad Israa'iil iyo Somaliland ay isxulufaysanayaan siday wararka xogaan ku hayno dhanka kale ra'iisul wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz ayaa gaadhay Beijing si loo xoojiyo ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaale ee labada dal siyaasadda Yurub ayaa weli diiradda saaraysa arrimaha ganacsiga iyo arrimaha diblomaasiyadeed caalamiga ah dhanka kale Suudaan kooxo ka tirsan Rapid Support Forces ayaa weerar ku qaaday magaalada Mustarhiya ee gobolka Darfur waxaana soo warinayaa in ka badan 20
in ka badan 20 qof lagu dilay weerarkaasi. Colaadahan ayaa sii hurinaya xaalad amni darro ee gobolka, iyadoo dalka Chad uu xidhay xuduudda bariga Suudaan. dhanka kale madaxweynaha Israa'iil ayaa sheegay inuu Addis Ababa kula kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali, iyagoo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dhinacyada sayniska, tiknoolajiyadda, beeraha, biyaha iyo tamarta. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in halkaasi muddo ka hor uu yimid madaxweynaha dalka Turkiga, tanna ay daba socoto arrintaasi si looga wada hadlay arrintaasi aqoonsiga Somaliland. wararka qaar baa sidaa sheegaya. dhanka kale wararka ka imaanaya Soomaaliya ayaa ka digtay xaalado gaajo oo sii xumaanaya, iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan nafaqo darro ba'an. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale fuliyey howlgallo ka dhan ah maleeshiyaad hubaysan. dhanka kale shil gaadhi oo ka dhacay Yemen ayaa sababay dhimashadii ugu yaraan 16 qof oo ay ku jiraan carruur. wararka ka imaanaya Somaliland, madaxweynaha Somaliland ayaa Dictor Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud u magacaabay safiir buuxa oo u idman Jamhuuriyadda Somaliland una fadhiya dowladda Israa'iil. safiirka cusub ayaa leh awoodaha iyo waajibaadka ku xusan xilkaas, si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka diblomaasiyadeed caalamiga oo aan hoos imanayn wasaaradda arrimaha dibadda. awood dheeraada ayuu leeyahay. daawadayaal, wararka caawaan idin haynaa waa nagaytaa. tan iyo inta dib kulmayno, habeenimo wanaagsan khiyaartana daawanaysaa. subscribe, share, like, comment, bye.